halkani waa Hargal TV. Fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay subscribe inoo saar channelka iyaga. Wuxuu ahaa nin taajir ah oo caan ku ahaa ilaalinta amaanada. Maalin maalmaha ka mid ah, nin ayaa u yimid, wuxuuna rabay inuu u dhiibto faraanti dahab ah amaano ahaan. Ninkii aaminka ahaa ayaa ninkii faraantiga u dhiibay ku yiri, ku rid qaanadaasi. Ninkii wuu ku riday, kadibna xiray, wuuna iska tagay. Kadib ku dhawaad 6 bilood, ninkii ayaa soo laabtay si uu u qaato amaanadiisa. Ninkii aaminka ahaa ayaa ku dhahay, waxaad ka helaysaa halkii aad dhigatay. Iyadoo sideeda ah, ninkii ayaa u jihaystay dhankii qaanada, wuuna furay, balse kama helin amaanadiisii. Kadib wuxuu u soo laabtay ninkii amaanada uu u dhiibtay, wuxuuna ku yiri, amaanadii kuma jirto halkii aan geliyay. Ninkii aaminka ahaa baa ku jawaabay, arinkeyga Rabbi ayaan u sheeganayaa, isagaa adoomihiisa u jeedee, bal iga warsug ilaa bari maqribkii. Ninkii aaminka ahaa aad ayuu u murugooday, wuxuuna xaaskiisa iyo caruurtiisaba weydiiyay inay arkeen fargashi ama faraanti, balse waxba kama ogeyn. Iyagu waxayna u sheegeen inaynan arkin. Markii uu baadigoob ka quustay, habeenkii wuxuu u istaagay salaatuleel, wuxuuna baryay Allah subxaanahu wa ta'ala isagoo u sheeganaya musiibada ku dhacday. Kadib salaadii subax, sidii caadada ahayd, dukaankiisii ayuu furtay. Goor barqa ah waxaa u yimid nin kalluumaysato ah oo wata kalluun ama malaay aad u weyn si uu ugu iibiyo taajirka ama ninka aaminka ah. Ninkii taajirka ahaa baa iibsaday kalluunkii, wuxuuna u geeyay xaaskiisa si ay qoyska cunno uga dhigto. Islaantii oo nadiifinaysa kalluunka ayaa ku dhex aragtay faraanti ama fargashi, waxayna soo aaday dhankii saygeedii. Waxay ku tiri, adiga faraantiga dhex galiya kalluunka dhexdiisa, haddana waxaad leedahay waan waayay. Ninkii aaminka ahaa ayaa farxay farxad aad u weyn, wuxuuna xaaskiisa ku dhahay, anigu saa ma sameynin, laakiin Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa doonay, wuxuu rabo ayuu sameeyaa. Ninkii faraantiga lahaa ayaa waqtigii la balamiyay ee maqribadii yimid si uu faraantigiisa u qaato. Ninkii aaminka ahaa baa ku yiri, kan faraantigaada soo ma ahan? Wuxuu yiri, haa, astaan gooni ah oo aan ku garanayo ayuu ii leeyahay, waana tan. Ninka aaminka ah waxaa daris la ahaa nin Yahuudi ah, wuxuuna la socday dhaqdhaqaaqiisa maalin waliba. Ninkii Yahuudiga ahaa ayaa arkay ninkii faraantiga lahaa oo wata faraantigiisa. Wuu u yeeray isaga iyo ninka aaminka ah, wuxuuna ku yiri, faraantigani aniga ayaa xaday oo ku tuuray badda, ee halkee ka keenteen? Ninkii aaminka ahaa baa yiri, Allah ayaa igu soo daray kalluun calooshiisa ama dhexdiisa, kalluunkaasoo aan ka gatay nin kalluumaysato ah. Qofkii Alla astura, makhluuq kama qaadi karo asturkaasi. Qofkii Alla ka cabsadana isagaa badbaadiya, ayuu hadalka ku soo xiray ninkii aaminka ahaa. Ninkii Yahuudiga ahaa ayaa halkii ku islaamay, wuxuuna ku dhawaaqay shahaadada. Aad baad u mahadsantahay daawade. Waxaa sheekadaani inoo soo turjumay oo aan aad ugu mahadcelinayaa Caaqil Yare oo qayb ka ah saaxiibadeena. Adiguna waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkaani. La sii wadaag saaxiibadaada kale ee aad jeceshahay inay qayb ka noqdaan asxaabta inagu qaaliga ee ku xiran Hargal TV.